Zaha gets a shot away! 1-1! Be down and scores Crystal Palace's third. Koscielny! Happy birthday, Laurent Koscielny! Marcus Rashford and Rashford scores! kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel ka sadaafa adduunyada naga daawaneysaan soo dhawaada halkani waa halkiini dabcan hadaad nala joogtay halkii ka sii hay hadaad nagu cusub tahayna soo dhawo walaal subscribe like inta iyo comment ha ilaawin dabcan maanta hoyga ciyaaraha weeye halkani dabcan waxaynu falanqeyn doonaa kooxdii Arsenal oo doonaysa in ay aad isu dhisto dabcan dhanka weerarka dhanka adiga difaac weerar dhankasta in iska dhisto dabcan waxa ay raadinaysaa ciyaaryahan aad u fara badan oo isugu jira difaac iyo khad dhexe iyo weerarba dabcan ciyaaryahanka ugu horeeya waa ciyaaryahan dabcan aad u qaali ah waana British weeye oo England buu dheelaa aniga kula hadlay England taageera waa Declan Rice lacagtiisuna almost waxa lagu qiyaasay 150 milyan oo pound dabcan waa Declan Rice Zaha oo isna Luis Zaha u dheela Crystal Palace sidoo kale waxay doonaysaa Moussa Diaby oo ka dheela wadanka Germany gaar ahaan kooxda Bayer Leverkusen waxa kaloo jirtay Arsenal inay rabto inay Crystal Palace laba nin ka afduubato Zaha iyo nin Guaha la dhoo difaaca oo center back ah iyadoo doonaysa in dabcan gadaal ay iska dhisto tusaale ahaan Arsenal xoogaa maalmaha waxa lagu xamanayay dhanka gadaalba malaba dhanka kooxda Arsenal oo rabto inay kooxda Crystal Palace laba ciyaaryahan ka afduubato oo dabcan oo Luis Zaha iyo haba ugu horeeyay iyo nin Guaha la dhoo difaaca sidoo kale kooxda Arsenal waxay ciyaaryahan ka rabtaa kooxda Dinamo Zagreb ee ka dhisan wadanka Croatia sidoo kale waxa jira ciyaaryahan iska soo daba dhacaya laakiin kooxda Arsenal badanaa waxay ku xuntahay ciyaaryahanka markay doonato isla markiiba ma galato intaas hadii lagu heshiiyo ma dhiibto oo xoogaa waxay jeceshahay suuqyada kale inay joomay wax badan adiga lacag raqiis wax ku raadsato dhibaatadaas haysata hadda koor baan xasuustaa Modric in la oranayo hadda Chelsea ay qaadatay iyaga caalamka tusay ka bacdi kooxda Shakhtar bay u tageen 20 milyan bay u geeyeen Chelsea waxa tii 150 milyan wadata Chelsea bana laga gaday Declan Rice hadadan aan kula hadlayo Man City baa soo gashay Man City meel ay soo gashayna de waa lagu kala baxaya 100 milyan hadii tirada la dhiibaya tan kale waxa jirta Arsenal dhibaato xoog u leeyahay dhibaatadaasna waxay tahay ragga difaaca ka ciyaaraya gadaal center back ninkan la dhaho Gabriel la dhaho oo Arsenal center back oo Brazilianka dabcan waa soft way aad buu jilicsan yahay sidoo kale waxa iska jira dhibaato oo ka haysata garabka bidixda iyo garabka midigtaba dabcan laakiin kooxda Arsenal hadda 4 game baa u haray 4 game afar ugu halis badan 8 bilood ee horyaalka la soo waday ma jirto kooxda Man City waxa u haray 6 game dabcan anigu waxaan ay taageero Man City ah geel caruur qaadayna waa dhowdahay in la soo qabto dabcan Arsenal waxaan rabnaa inaan soo afduubno gabigeeda ilmaada Real oo kooxda Arsenal ay horyaalkani Etihad Stadium iska jeceliye Haaland baa ku dabaaldegaya Haaland wixiisa loo daayay koobkan Haaland baa iska leh Haaland sanadkan record buu jabiyay 35 gool buu dhaliyay ciyaaryahan ajaanib ah ka dhalinin England wadanka Britain kama dhalin record buu jabiyay ilaa ay hadana recordkii uu sii wadan doonaa sidoo kale Leeds baa noo imaanaysa oo waxay noogu imaanaysaa home kayaga Etihad nin soo galayna kulleed waa nin god libaax soo galay waa la afuufaya waa ku hawadan u fiirin doona kooxda Arsenal waxaan leenahay kaalintiina labaad iska soo gala Champions League bal iska dheeleela muddo hore inuu dambeysay Champions League korogo laba saar kooxdii Man United ahayd oo kuwaas marxuumin bay ahaayeen xalay madaxa lagu dhuftay beerka laga tumay Man United awalba hore u dhimatay FA Cup kana waa la sii dili doonaa kulli Champions League way imaanaysaa laakiin waxay qaaraysan I don't know dabcan Man United waa koox baabaada koox dhimatay weey kooxdii Liverpoolna marxuumin kale noqdeen sidii maan uga tagay hoos bay u dhaceen iyagana dhibaatooyin baa iska jira laakiin kooxda kaliya ee Premier League hadda ugu liidata xataa UEFA and Elden waa kooxda Chelsea awal bad Amazon bay ahayd oo waxba hadda islama hayaan saddex kooxood way ilaa hadana waxa how to management waa la garan lahayd si loo kala manage gareeyo kooxdaas aynu u wada nimaano waxaynu nimaanana Arsenal Newcastle bay la dheelaysaa Newcastle Champions League bay u socotaa oo waxay rabtaa Man United inay meesha ka gasho bal adiga macquul gal ma kula tahay Newcastle Champions League u socoto oo boqor Salman uu leeyahay Sacuudiga iska leeyahay in ay Arsenal حاب كقاري دون نيوكاسل جيمس باغنا ولا جوجا تشامبيون ليغنا ولا بلان قادي كوخ نيوكاسل waxa la dhahay ciyaaryahanada hadda jooga cala qof
50 milyan oo pound baa la siinayaa haddii ay Champions League u soo baxaan aga marka waxaan leenahay Arsenal afli baax baad ku dhacday Ilaahay ku naxariisto ninka Haaland rekoorkiisii waa sii wataa oo dabcan bari buu dheelayaa dabcan waxaan leenahay soo dhawaada dhamaantiin haddaad hore noola joogtay nala joogtay haddaad nagu cusub tahayna walaal fadlan waxaan ka codsanayaa si sharaf iyo xushmad ku dheehan tahay subscribe like comment inta wana si dabcan anaka waxaad nooga barateen warar lagu kalsoon yahay oo direct website-ka ama warbaahinta Arsenal iyo Sky News-ka ay qorayaan anaku warar been abuur ma qorno ama ma soo deeno dabcan warar waxa iska jira news controversial ah anagu waxa ma sii deeno warkan direct website-ka kooxda Arsenal baan uga soo xaqiijinay iyo Sky News-ka marka warkani waa war lagu kalsoon yahay kooxda Arsenal oo 5 ciyaaryahan raadinaysa kan koobaad waa Declan Rice Luis Zaha Guaye iyo Musa Diaby ka afraadna waa laba ciyaaryahan magacyadooda aad bay ugu adkaadeen waa Croatia iyo mid Japanese Arsenal waa lagu yaqaanay meelaha luqluqyada inay ka adeegato oo ceebtood ma waa caadadooda war ciao Marcus Rashford and